kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono xaaladda dhabta ah ee abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland iyo gurmadka ilaa iyo hadda la gaarsiiyay dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen. barnaamijkan gaarka ah waxaa idinla socodsiin doona anigoo Ismaaciil Bashiir Warsamo ah waxaana iigu marti ah oo igala qayb galaya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed. wasiir ugu horeyn kusoo dhawow Jubbaland TV waxaadna warbixin naga siisaa xaaladda dhabta ah ee abaaraha ka jira Jubbaland. aad baa u mahadsantahay Ismaaciil, waa ku dhowahay barnaamijkan marxaladda abaaraha Jubbaland haddaan warbixin idinka siiyo. Jubbaland markii ay barnaamijkan abaaruhu Soomaaliya ku bilaabanay waxay ahayd meelihii ugu darnaa ee Soomaaliya aad ay u saameysay, runtiina saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo xoolo dhaqatada iyo dhammaan. waxaan u maleeyaa gurmad caalami ah iyo gurmad maxalli ahba labadaba markii ay barnaamijkan Jubbaland ka bilaabatay uu ugu horreeyay madaxweynaha dowladda Jubbaland waa la sameeyey. maanta waxa taagan Jubbaland qaybaheedana abaartii waa kasii jirta ayadiiba taagan, meelo qaarna saameyntii ay reebtay ayaa lala daala dhacaya. waxaad ogtahay Jubbaland boqolkiiba 98 dadku waa xoolo dhaqato. nolosha miyigana nolosha magaaladu waxay ku noqon nolosha bidiga oo hadday dhaqaale noqoto wax walba noqoto. dadkii Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee xoolaha dhaqanay xoolihii waa ka dhamaadeen. maanta waxay dulsaar ku yihiin oo barakac ku yihiin oo ay ku soo hayaameen deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland ayagoo raadinaya nolol asaasi ah, hadday noqoto raashin, hadday noqoto biyo, hadday noqoto caafimaad iyo wax walba. maanta wax baadiyihii looga tashanayo oo badan ma jiraan, oo culays weyn oo dowladda Jubbaland saaran inay dadkaas boqolaalka kun ee reer Jubbaland ee magaalooyinka ku soo barakacay maanta in nolol loo raadiyo. intaa waxaa dheer markay abaartu dhacdo waxay wadataa waxyaalo fara badan ama xanuuna ama cudurro aan la garanayn oo dadkii saameyn ku yeeshay. initialina markii ay xoolaha dhammaanayeen abaartu kelima aheene cudurro ay abaartu wadatay ayaa xoolihii laayay. maantana waxaa jirtaa runtii nafaqa darro aad u fara badan oo caruur Soomaaliyeed ilaa hadda gaaraysa 3 bilood oo lasoo dhaafay lagu qiyaaso. annagoo ka la shaqaynayno wasaaradda caafimaadka xogaha aan helayno ilaa 200 ku dhowaad inay u dhimatay maxaa la dhahay nafaqa darro, in ka badanna ay la daala dhacayaan oo isbitaalada Jubbaland ay ku jiraan. runtiina saameynta ay abaartu u geysatay bulshada Jubbaland aad bay u culus tahay. marxaladeedana halkaasuu marayaa. dadaaladina waan wadnaa iyo sidii ma aragtay lagu yareyn lahaa. intii ay jirtay wasiir wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ilaa iyo hadda maxaa idinkaga qabsoomay sidii loo samata bixin lahaa dadka Soomaaliyeed iyo gurmadka ilaa hadda la gaarsiiyay? wasaaradda gargaarka hal sano ay jirtaa. bishii 5aad 2021 baa la aasaasay. runtiina aad baan uga mahadcelinayaa wasiir ku-xigeenkayga iyo agaasimaha howlwadeennada shaqadii la qabtay ee baaxadda lahayd. oon rabo madaxweynahana inaan xuso uu garab nagu siiyey. meel walba wasaaraddu dee markay abaar dhacdo mas-uuliyad iyo waxaa na saaran ummadda naga saaran. wasaaradduna geed gaaban iyo geed dheer ay u fuushay oo ay ka mid tahay in aan u tagno. Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa geedi socod lagu yagleelayo dowladnimo. institutionadeennii ma dhammaystirna, taya ay adeeg bulsho buuxdo ay dadkii ma aragtay lagu hanqabtirayna ma jiraan. waxaa nala shaqeeyaa marka dad la yidhaahdo stakeholders oo deeq-bixiyaal ah. waxaan tagnay safaaradaha beesha caalamka ee Soomaaliya maanta garab istaaga, aan u bandhignay baahiyaha rasmiga ah iyo gurmadka sida ay uga qayb qaadan lahaayeen. dalku marxalad adag ka jirtay, doorashooyin baa jireen. doorashooyinka iyo marxaladda dalka uu maray waxay sababtay in dadkii deeq-bixiyaashaha ay adeegyadii ay bixin lahaayeen ay dowladda ku kaabi lahaayeen ama ha noqoto gurmad abaara inay dib u ceshadaan ayadoo ay sababayso marxaladda markaa kale guurka oo dalka ku jiray. wasaaraddu waxaan ku qancinay beesha caalamka iyo safaaradaha iyo deeq-bixiyaasha caalamiga ah in la kala saaro siyaasadda iyo arrimaha bini'aadanimada. waxaanan codsi iyo baaq ugu dirnay annagoo inta joogno iyo meelahoodaan ugu tagnay in ay barnaamijkaas ka jawaabaan bini'aadanimadana mudnaanta la siiyo.
waxaad ogeed inay Jubbaland imaadeen waafuudyo waaweyn oo ka kala socoto maxaa la safiiro mar ay hogaaminaysay safiirka oo midowga Yurub safaaradaha sida maxaa la dhahay Ingiriiska iyo Mareykanka inay ay imaadeen intaasna ay ku imaadeen baaqi madaxweynaha iyo baaqi wasaaradda gargaarka ay u gudbisay maxaa la dhahay markii ugu horeysay marka Jubbaland waxay heshay waxa jira lacag la bixiyo oo bixiyaan qolo la yiraahdo Somali Humanitarian Fund markay doonaska bixiyaan meel isugu keenaa jira lacagtii ugu horeysay oo maamul goboleedyada loo qaybiyay Jubbaland ugu badnayd runtiina waxa waaye haday noqoto lacagtaas waxa lagu isticmaalay haday noqoto biyo dhaamin haday noqoto maxaa la dhahay gurmadka dhinaca waxaan la yiraahdo cash transfer ama lacagaha dadka la siiyo oo hay'adaha la soo mariyo haday noqoto arrimaha caafimaadka iyo haday noqoto arrimaha washka iyo arrimaha maartay nadaafadda iyo sidii looga hortagi lahaa maadaama marxalad adag ay ku jiraan dadkiina ay meelo badan inta isugu tageen cudurro ka dhalan karaan marka gurmadkii iyo baaqeeni meel fog u gaaray waxa kamid ah aan la macaamilnay oo codkeenu gaarsiinay inaan qoladan la yiraahdo non formal donors ama carabaha imaaraadka imaaday waxa imaaday Cumaan baa imaatay waxaa imaaday ilaahay kuma darnay Sacuudiga King Salman Foundation marka gurmadkii wasaaradii baaqi ay dirtay iyo dadaaladii waxa ku helnay gurmad caalami ah iyo ku maxalli ah waxaan inta ugu darayaa gurmadka waxa kamid ah oo ugu mahad celinaya qurba joogta Soomaaliyeed ee reer Jubbaland kaalin weyn ay ka qaateen innagana waan u fududeynay oo wax walba oo looga qayb qaadanayo waxaan sameeynay guddi waxaa jira la yiraahdo guddiga ka hortagga iyo isu diyaarinta musiibooyinka ee heer state oo wasaaraddu sameysay oo naga caawinaya in adeegyadu ay gaarsiiyeen degmooyinka iyo tuulooyinka iyo degmooyinkana waxaan ka sii sameynay guddiya oo bulsho ayagana oo maxal ahay lagu toosiyo wixii dhaqaale ah oo la macaamilay qurba joogta runtiina gurmad ugu horeeyo madaxweynaha macal wasaaradda macal bulshada reer Jubbaland aan ka qayb qaadanay waana maxaa la dhahay aadaan ugu faraxsanahay walow baahida iyo baaxadda inta dhaneed aan la qab kari jirin oo dadku aad ay u badan yihiin saameyntu aad ay u badneed laakiin intii kalaamkeen aad dadaal badan la sameeyay wasaaraddu sameysay waa mahadsantahay wasiir ma jira tirokoob la sameeyey oo ku aadan tirada dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Jubbaland hortay tirakoobyada Soomaaliya ama stateyada waxaa sameeyaan qolo la yiraahdo UN oo maaragtay FAO iyo hay'ado kale oo iskaashanayaan baa sameeyaan maadaama wasaaradda gargaarku ay hore u jirin statisticskii iyo tiradii laga soo saaray Jubbaland ay u dambeysay Jubbaland wax ay ku qaracday ma ahayn sababtoo ah markii la soo saarayo xisaabaha noocaas oo kale ah waxaa muhiim ah ama biyo kama dhibcaana in lala tashado wasaaradda gargaarka ama wasaaradaha ay qusayso مثلا markii la qaadayo tirakoobka waxaa jira mudnaanta la siiyo kow arrimaha cunno yarida oo kale iyo dadka ay saameysayaan la qiimeeya arrimaha maxaa la dhahay nafaqa darrada wasaaradaha sida caafimaadka iyo beeraha iyo wasaaradda gargaarka iyo wasaaradahaas lala shaqeeya qoladii marka UN ahayd ee qaybtii ka shaqeynaysa tirakoobka ay Jubbaland ka soo saartay maysan ahayn wax annaga aan ku qaracnay inta markaan dareennay waxaan qornay dacwo oo maxaa la dhahay caalami ah waxaa la igu casuumay shir weyn aan kaga qayb galayo oo kaga hadlayo Jubbaland tirakoobka laga sameeyay inuusan ahayn in loo marin habkii loogu talagalay oo ay ahayd in lala tashado maadaama dawladdu ay mas'uul ka tahay raaligelin bay ka bixiyeen arrintaana arrin golaha wasiirada aan geynay waxa madaxweynaha dawladda Jubbaland uu qayb ka qaatay ahayd wali aan soo ogaanay inay ahayd tirakoobka la sameeyay tirakoob la xiriira arrimo siyaasadeed xamar la xiriiray oo maaragtay rejiimkii hore ahay aan ogaanay madaxweynahana waxa way tilaabo ka qaaday annaguna maxaa la meeshii la rabaan gaarsiinay marka hadda bishana la wada tirakoob kale oo dawladdu qayb ka noqonayso oo maxaa la dhahay howlwadeenada wasaaraduhu ay qayb ka noqon doonaan marka mid rasmiga ah haddaan sugayno insha Allah in Jubbaland laga soo saaro waa tahay wasiir waxaa sheegtay in wasaaraddu ay markaasi qayladaan u dirtay beesha caalamka iyo deeq-bixiyaasha caalamiga ah ilaa iyo hadda maxaa natiijo oo ka soo baxay qayladaantaas qayladaanta waxna uu ka soo baxay intii la rabana ma uusan gaarin waxaad og tahay intii abaarahan bilowdeen dalkana waxaa ka jira qalalaasa siyaasadeed
sideedana hay-adaha caalamiga ama maxaa ladahay safaaradaha ama deeqbixiyaashu waxay wax ku bixiyaan siyaasad xasiloon oo hay-adaha dowladdu ay si fiican ay u degan yihiin oo lagu aamini karo lala xisaabtami karo. xukuumadda joogto waa xukuumad kumeel gaar ah oo maanta mashaariic iyo waxaan lagu aamini karin. sidaa darteed ayadoo hadda intaas ay jirto baa annagu gurmad isku tashi ah aan samaynay oo meel walba ah. hadda matalan deegaanada Jubbaland oo dhan waxaa ka socda oo naga caawiyeen deeqbixiyaasha cash transfer ama waxaan la yiraahdo cuntada kaararka cuntada. maanta ku dhawaad ilaa iyo hadda intii abaartu bilaabatay 300,000 oo qoys ayaa qaadanaysa kaarka cunnada ah oo bil walba markii dhamaato dukaankay tagayaan waxay ka soo qaadanayaan raashin ku filan ilaa $100. hay'adaha siba waxay u bixiyaan qaar $70. intaas waxaan markaan ogaanay dadku inay cunnada keli ay ku filneen, hay'adaha waxaan u soo jeedinay inay bixiyaan cash oo dadku lacag siiyaan si uu qoysku u yeesho maxaa la dhahay kala dooq raashin uu qayb ku gato qaybna uu ku gato maxaa la dhahay waxyaalaha kale u baahan yahay haday noqoto saabuun iyo nadaafada iyo wixii kale uu uga baahan yahay inay ku gataan. waxyaalaha hadda aan mudnaanta siinayno waxaa weeye kaashkaas in dadka loo badiyo si ay u lahaadaan maxaa la dhahay dooq oo maaragta noloshooda kamid ah waxyaalo kala duwan u qabsadaan, qaarna ay raashin ku gataan, qaarna arrimaha caafimaadda isaga dabiri karaan ay isaga dabiraan. taas model la qaatay way oo hadda dadka aan rabno in maxaa la dhahay dadku lagu kaabo meel walba joogaan. marka deegaanada Jubbaland meel walba hadda degmo walba waxaa ka socota raashinkaas loo qoraayo iyo lacag bixintaas oo aad diiradda loo saaray. intii gurmadkaas ay naga caawiyeen hay'adaha caalamka iyo deeq-bixiyaashana wax badana isdhimay keli dadku hadda waxay u baahan yihiin dowladdiina maadaama dhul ay siisay in barnaamijkii xalka waara ee guryihii loo dhiso. sida kale lacagii way helaan maxaa la dhahay raashinkii waa la qaataa dadaalaan bixinaa inkastoo ku filneen, laakiin hadda waxa kale oo tabayna waxa waaye in dadkii barnaamijka xalka waara loo sameeyo. waxaa kaloo rabaa inaan ku xasuusiyo dadaalada ay dowladdu iyo hadda wato waxaa ka mid ah si la isugu xiri lahaa arrimaha gargaarka iyo arrimaha horumarka. waxaan ka wadaa in laga guuraan rabnaa barnaamijkan emergency-ga ah oo laga guuro oo loo guuro horumar. madaxda dowladda iyo madaxa bulshadaba inay ku fikiraan sidii loogu gudbi lahaa horumar. tusaale oo kale annagoo fulinayno hadda dadaalada gurmadka wadno waa in mashruuc walba oo gargaar ah laga dhaxelo qodob horumar ah. tusaale dadka in xoolo loo aduudo oo ma aragtay markii mashruuc la soo helo 50 qoys oo kale in loo gado xoolo 10 loo aduudo ama ari ha noqdo ama lo ha noqdo ama wixii ma aragtay munaasab ha noqdo. laba in beeri lagu maalgeliyo oo dadku xirfado la siiyo. dal waxaan haysanaa qani ah beerihii baa inta noo jira in lagu maalgeliyo oo wax soo saarkoogina hadhowdi suuq caalami loo raadiyo. waxaa intaa dheer kalluumaysigii waxaan haysanaa webigii iyo baddi baa isdul saaran. coastal line-ka ugu dheer ba Jubbaland haysata maanta in dadkeenii khayraadka ay haystaan lagu maalgeliyo oo dadku ay ka fikiraan intii maxaa la dhahay xal waara loo sameeyo guryo loo dhiso kadibna noloshan khayraadka dalkooda lagu maalgeliyo. marka barnaamijka waxaa la yiraahdaa humanitarian development nexus 5 sano ee qorshaha wasaaradda u dejisan waxyaalaha uu diiradda saaray ka mid tahay 5 sano soo socota ama 4 sano soo socota insha Allah waxaan rabnaa inay yaraadaan dadka barakaca ah ama emergency-ga oo dadku beerahooda iyo xoolahooda iyo deegaanadooda iyo khayraadkooda in lagu maalgeliyo laga baxo insha Allah. madaxweynaha hormuud ka yahay shir weyn oo wasaaraddu qaban qaabisay oo madaxweynuhu shir gudoominaya jiray oo safiirada isugu imaadeen uu kala hadlay qorshaha xalka waara haddana aan wadno insha Allah sidii loo hirgelin lahaa. wasiir marka laga soo tago taageerada beesha caalamka ma jirtaa miisaaniyad gaar ah oo dowlad goboleedka Jubbaland ay u qorshaysay gurmadka abaaraha? runtii markii laga soo tago isku tashiga bulshada iyo waxyaalaha ay aruuriyeen bulshada iyo ganacsatada oo qayb weyn ka qaateen ka dowlad ahaan marxaladda hadda Jubbaland ay ku jirto waad garanaysaa 4 sano iyo 5 sano oo la soo dhaafay waxa iska jira cunaqabateyn siyaasadeed. dakhliga laga aruuriyana maxaa la dhahay dowladdu ay aruurisana waxaa mudnaanta weyn u leh waa amni buu ku baxaa. waayo maanta dadkeena nagu soo qaxay ee meel walba ka imaaday oon dhulalka waaweyn siinay oon u adeegayno nabadgelyada ay haystaan ma ay haysan lahayn haddii ma aragta mudnaan aana siinin. marka dowladdu dadaalo way jiraan oo madaxweynuhu si shakhsi ah
kheyr allah ha siiyo jeebkiisu ka bixiyey iyo ganacsatada iyo maxaa la dhahay la abaabulay ee reer Jubbaland laakiin dowladdu wax hadda gaar oo ay u qorshaysay ma jiro waxaana keenaya culeysyada jira ee maaragta mudnaanta ah maxaa la dhahay sida amniga oo kale ay ku baxayso laakiin dardargelinta hadda socoto ee wasaaradda madaxweynaha uu soo system hadda socda oo lagu reform lagu sameynayo systemka revenue-ga wasiirka maaliyadda aan wada hadal yeelanay sanadahan hadda lagu jiro ama bilooyinka soo socda waxaa la rajeyn doonaa in loo allocate gareyn doono dadka maxaa la dhahay sida baahiyaha gaarka qaba iyo abaarahaba in loo sameyn doono allocation insha Allah taala waa tahay wasiir waxaa jirta lacag 1 milyan ah oo xukuumaddii hore ee dowladda federaalka ay sheegtay inay ku bixinayso gurmadka abaaraha lacagtaas Jubbaland qoondadii ay ku lahayd ma ka heshay barnaamijka hortay abaaraha lacagta 1 milyan waa la siyaasadiyay waana arrin cad Jubbaland wax hadda ay maanta sheegan karto oo la taaban karo oo lacagta ka heshay waxaan ka ahayn 2 jeer oo min 10,000 la soo diray aan ka ahayn wax kale oo Jubbaland heshay ma jiro lacagtaasna waa la siyaasadeeyay waxaa maxaa la dhahay mucaawanada dowladda federaalka imaatay haday raashin noqoto haday lacag noqotaba waxay noqotay lacaga ama lagu raadsado saaxiibtinimo ama lagu raadsado wasiir ay noqotay marka ka Jubbaland ahaan annaga wax hadda aan ka sheegano oo qumano naga soo gaaray malaha waxaan cadeynaynaa lacagta in la siyaasaday oo sidii loogu talagalana aan loo qaybin sababtoo ah waxaa la rabaa barnaamijka markii lacagta lagu dhawaaqo in miiska la keeno dowlad goboleedyadu maanta dalku waa federal baahiyaha dalkuna waa kala duwan yihiin waxaa la rabaa in consensus ama wax wada jir ah oo isla ogol ah in lagu qaybiyo oo wasiirada loo yeero oo la yiraahdo Jubbaland intana loo allocate gareeyay Puntland intana loo allocate gareeyay ama intana loo dhigay koonfur galbeed ay ahaytiina maana dhicin wuxuu noqday wax miis hoostii lagu qaybsado oo annaguna war ka haynin oo la rabo in hadda la soco waxyaalaha hadda xafiiska ergeyga aan kala hadalnay Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsan oo la ka mid ahayd oo rajeynayna isbuucan inuu imaan doon dhowr shir baan yeelanay ah in wixii gargaar oo dowladda federaalka soo maro in daah furan iyo si maxaa la dhahay cad in lagu qaybiyo oo annagana aan ognahay maamul goboleedyadu ay ogyihiin si maxaa la dhahay lagu qaybiyo marka waxaan ku cadeynayaa barnaamijka in la siyaasaday Jubbaland ay ku qanacsaneen wax qumanaanu hadda ka soo gaarin aan sheegi karo wasiir waxaa sheegtay in lacagtii xukuumaddii hore ay ugu talagashay gurmadka abaaraha la siyaasadeeyay oo Jubbaland aysan waxba ka helin dalka isbedel baa ka dhacay dowladda cusub ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh arintaas ma kala hadasheen kow annaga markii aan barnaamijka dhacday waxaa kulley aan kala hadalnay madaxweynaheena mudane Axmed Maxamed Salaam waxaa jiray kulley shir ay wada qaateen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ay kaga warbixinayeen marxaladda abaaraha iyo ayaga naftood sidii hadda kadib wada shaqayn loo bilaabi lahaa sababtoo ah dowladdii hore meel walba waa laga dhaawacnaa madaxda maamul goboleedyada hadday noqoto iyo wasaaradooda kalsooni ma jirin xasan sheekh maxamuudna wuu soo dhaweeyey in si waafi ah loo wada shaqayn doono lacagaha beesha caalamka ay ku deeqeen loo marin doono jaanila ama maxaa la dhahay wadooyin la isla ogyahay sida single treasury account-ka dowladaha hadda waxay samaysteen oo beesha caalamku ka caawisay systemka maaliyadaha la dhisay si marka kalsoonida loo dhiso lacagahu waa in ay hufnaan meel ay martay meel loogu talagalay sida loo bixiyo xisaab celin inaan sameyn karno oo la soo mariyo treasury account lacagahaas hadda 1 milyan-ka ah hatta lama soo waa lagala cararay in la soo mariyo maaliyadaha account-nada systemka cad oo transparency-ga oo la ogaan karo xisaab celin aan ku sameyn karno marka madaxweynuhu ayagoo naga wakiil madaxweynayaasha maamul goboleedyadu madaxweynaha jamhuuriyaddana way kala hadleen inagoo heer wasiirnana waxaan kala hadalnay ergeygii uu soo magacaabay asagana arintaas uu mudnaan siinayo sidii loo sixi lahaa waa tahay wasiir waxaa jira ergey gaar ah oo madaxweynaha Soomaaliya uu u magacaabay arrimaha abaaraha iyo arrimaha bini'aadanimada ergeygaas wada shaqayn ma la leeyihiin ergeyga markii la magacaabay dadaalo badan buu sameeyey asagana soo raadiyey runtiina markii hore shirar waxaan qaadanay fogaan arag oo isbarasho ah kadibna xamara isugu tagnay inuu noo soo bandhigo marka asaga ah sida uu shaqayn doono iyo runtiina wuxuu na tusay inuu kalsooni iyo maxal ahay dowladnimo iyo wax lagu wada kalsoon yahay inuu ku shaqayn doono inagana waan la qaadanay barnaamijkaas waxaan u ballan qaadnay inaan garab u noqono sidaas awgeed hadda uu nala shaqeeyaa
wuxuuna booqasho iyo maarag wada tashi iyo baahiyaha gaarka ah uu aruurinaya uu ku tegaya deegaanada maxaa la dhahay gobolada Jubbaland iyo Soomaaliba. hadda waan rajaynaynaa isbuucan inuu imaado wada tashi guud baan la samayn doonaa, madaxda Jubbaland oo la kulmi doonaa, wada shaqayn wanaagsan naga dhaxaysa. waxaan rajaynaynaa wada shaqaynta inay si fiican u sii ma la dhahay, wuxuuna isku dayayaa inay tuhunkii hore oo la kala qaaday gargaarka sidii maaragtay loo siyaasadeeyey iyo kalsooni darradii ka jirtay maamul goboleedyadu inay aaminaan dowladda federaalka inuu naga bogsiyo hadda isku dayaya oon annagana ku taageersannahay. asagana waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu maxaa la dhahay ka fiicnaado sidii hore, si hufnaanna uu ku shaqeeyo, annagana garab aan u noqon hadduu alla idmo. waa tahay wasiir, waxaa jirtay kulamo aada la qaadatay safiirada dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska xilli ay markaasi kulan la lahaayeen madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. safiirada maxaa ka wada hadasheen oo ku aadan arrimaha abaaraha? runtii barnaamijka hortay ay u imaadeen waa barnaamij ballaaran oo toobigiisu madaxweynuhu governance-ka oo ku xisaabsan waxaan la yiraahdo state building process ama markii dowlad dhiska laga hadlayo baahiyaha guud ee Soomaaliya, hadday noqoto arrimaha amniga, hadday noqoto arrimaha maxaa la dhahay horumarka, hadday noqoto arrimaha tayeynta hay'adaha dowladdu, hadday noqoto arrimaha cadaaladda iyo waxaas oo dhan. intii aniga aan madaxweynaha wehelinayay waxaan kala hadlay arrimaha gargaarka mudnaanta maanta annaga noo ah dadkeena boqolaalka kun ee reer Jubbaland iyo milyaayintii ay saameysay abaaruhu maxaa mudnaan u noqon kara. waxyaalaha aad aan diiradda u saarnay waxaa ka mid ah arrintii hadday aan ka hadlay oo ahayd sidee la isugu xiraa arrimaha horumarka iyo arrimaha gargaarka. kow ayagoo mudnaan siinaya arrimaha biyaha, cunnada, caafimaadka, hoyiga, in dadka laga gargaaro maanta ku barakacay Jubbaland oo meel walba daadsan, annagoo mudnaan siinayna in haddana maadaama ay yihiin dad dhoonaas ah ama deeq-bixiyaal ah oo Soomaaliyana in badan soo kabaya, in laga shaqeeyo dadkaas sidii xal waara loogu raadin lahaa. waxyaalaha ay ayagana maanta aad u danaynayaan waxaa weeye dadka in xal waara loo raadiyo oo noloshoodii guryo loo dhiso, lambar 2 beerahooda lagu maalgeliyo, lambar 3 xoolo loo gado, lambar 4 in kalluumaysi maxaa la dhahayo lagu maalgeliyo, lambar 3 in loo sameeyo suuqa caalami ah. tusaale waxaa jirta hay'adda USAID oo safiirka la socotay, waxay Soomaaliya ka sameeyeen runtii mashaariic lama ilaawaan ah sida hadda afgooyi oo kale. waxay ka sameeyeen iskaashatooyin oo lagu maalgeliyey beeraha iyo kheyraadka dalka ka soo baxaya. markii intaa u sameeyeen oo lagu maalgeliyey oo dadkii beerihii fasheen oo dalagii u soo baxay, waxay u raadiyeen suuq caalami ah. dadkii waxay noqdeen dad isku tiirsan, beeraley ah, wixii u soo go'o suuq ka baxsan Soomaaliya ay geysan karaan. waxyaalaha aan ka codsadaa waxay ka mid ahayd maadaama kheyraadkii iyo horumarkii iyo mashaariicdii Jubbaland la siyaasaday maanta aan fursad haysano, Jubbalandna ay tahay meesha maanta Soomaaliya ugu kheyraadka badan, dadkeeda in lagu maalgeliyo beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. qorshaha wasaaradduna gacantan ka saarnay, madaxweynahana arrinta xalka waara aad ugu adkeeyey oo dhahaan ballan qaadeen inay mar dhow maalgelin doonaan dadkaas sidii xal waara loogu raadin lahaa, mashaariicda horumarineedna in laga shaqeeyo. arrimaha mudnaanta gargaarka ay siinayeen haddana way wadaan oo ay nagala shaqeeyaan oo waxay soo mariyaan hay'adaha UN-ka iyo hay'adaha caalamiga ah. marka barnaamijkaas waa isla qaadaa dhignay, runtiina waxayna tuseen qalbi wanaagsan inay nagala shaqeyn doonaan barnaamijka horumarka iyo arrimaha gargaarkaba sidii xal waara loogu raadin lahaa musiibooyinka soo noqnoqda insha Allah. waa tahay wasiir, abaaraha soo noqnoqda ee Soomaaliya sidee ayaad is leedahay xal waara waa lagu heli karaa? Soomaaliya marka laga hadlayo madal badan oo shirar waaweyn oo caalami ah ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya uu joogo aniga waan ka sheegay. marka laga hadlayo musiibo Soomaaliya 2 qodob leh waa fatahaad iyo abaar. waxaa nasiib darro ah ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdeedaba bil inay ka cabudaan abaar, bisha xigtana inay fatahaad ka cabudaan. waxyaalaha looga bixi karana waxaa ka mid ah oo ayaga nafteed iyo deeq-bixiyaasha la wadaagay dowladduna inay qorshaheeda mudnaan siiso ay tahay kow meelaha abaaruhu ay ka dhacaan in la sameeyo biyo keediba lagu sameeyo. biyihii way da'ayaan, webiga isaga qulqulayaan, berri waa laga ooman yahay. in la sameeyo dams, hadda waxaan tusaale u soo qaatay daamka ugu weyn ee caalamka $4 bilyan oo dollar ku baxday. waa su-aashii aan weydiiyey deeq-bixiyaasha, waxaan ku idhi haddii daamka ugu weyn adduunka $4 bilyan ay ku baxday,
meeqaa lacag oo dollar ah oo Soomaali ku bixiseen sanadkii arrimaha gargaarka oo maad nooga caawisaan meelaha abaaraha ka dhacay in wara laga qodo dhaams laga sameeyo biyo keedimo laga sameeyo oo roobku markuu noo da'aan biyuhu ay raagaan oo markuu jiilaalka dhaco dadku ay u baxsadaan lambar 2 arrinta fatahaadka in webiga laga dhiso biyo xireenno dowladdii hore Soomaaliya way dhisneed way jireen wixii markay dowladdii burburtana institutionada ay burbureenna wax walba burburay in noola sameeyo biyo xireenno webiyada inta assessment la sameeyo webiga Jubba biyo xireenno la sameeyo haddii intaa noola sameeyo qataraha soo noqnoqda sida abaaraha iyo fatahaadada way yaraanayaan waxyaalaha hadda mudnaanka noo taasaa ka mid waxyaalaha kale oo mar walba kala hadlo waxaa ka mid dowladdu in loo sameeyo wax la yiraahdo kaydka raashinka strategic food reserve la yiraahdo dowladdii hore oo Soomaaliya ay lahayn jirtay qodobkaas waxaa muhiim ah oo diiradda la saarayo markii cunto keedin la sameeyo koow waxaa la dhiirigelinayaa dalagga wax soo saarka gudaha waayo WFP iyo hay'adaha caalamka raashinka ay soo gadaan oo gargaarka nooga dhigaan dibadda laga keenaa haddii annagoo iskaashanayno wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha ay quseeya dadka lagu dhiirigeliyo beero fasha wixii idin soo baxana dowladda idinka gadanay hay'adaha UN-ka oo idinka gadanay barako inta yaraadaan ay beero falan lahayn wixii ka soo go'ana kaydka waxa la dhigi lahaa maxaa la dhahay waxyaalaha waxay ka mid tahay lagu improve gareynayo wax soo saarka dalagga lagu dhiirigelinayna dadweynaha Jubbaland marka labadaas ugu waaweyn fatahaadiya sidaas looga hortagi karaa iyo arrimaha abaaraha waxyaalaha hadda aan kala hadla qorshaha wasaaradda 5 sano ku jiro meel walbana aan kaga hadlay kamid ayagana way qaateen waxaan rajaynayaa insha Allah in xal waara loo heli doono mar haddii annaga aan ku celcelino qorshahaasna uu mudnaan noo noqdo waa tahay wasiir hay'adaha bixiya gargaarka waxaa jirta in xilliga uu soo go'o dalagga ay beertaan dadka Soomaaliyeed inay ku soo beegaan deeqaha markaas ay bixinayaan arintaas oo caqabad ku ah dadka beeraleyda ah arintaas ma kala hadasheen hay'adaha gargaarka bixiya waan kala hadalnay arinta wali mudnaanta aan siinay ahayd laakiin ayaga sabab ay sheegeen waxay noo sheegeen maadaama Soomaaliya dhulkii badankiisa cadow uu haysto dhulalkii ugu khayraadka badnaana hadda maxaa la dhahay dowladda gacanteeda uusan ku jirin waxa ka soo baxo Soomaaliya kuma filna hadday dhahan waan gadanaynaa kuma filno baahida iyo maxaa la dhahay dadweynaha wax gaarsiinayaan kuma filna marka waxay leeyihiin wax soo saarka Soomaaliya yar sida awgeeda annaga nagu kalifaysa inaan banaanka ka keenno haddii dowladdu ay xoreyso dhulalka la xoreeyo oo Soomaaliya waan ognahay meel ka khayraad badan iyo beera iyo ma jiraan annaga dowladda qorsheedan raacayna dadka Soomaaliyeed maxalligan ka gadanayna si aan u dhiirigelino beeraleyda laakiin caqabada hadda ay sheegteen waa amni oo meelihii beeraha ka soo bixi lahayna qoladii maxaa la dhahay ay haystaan sidaa darteedna access la'aan iyo caqabadahaas ay sheegtaan waana arrin laga garaabi karo hadda dalka uu ku jiro ugu dambeyntii wasiir muxuu yahay baaqa aad u direysay dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba oo ku aadan sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa dhammaan beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah iyo qurbo joogta Soomaaliyeed ee kaalin weyn ka qaatay mar walba ama ka qaataba ummadda Soomaaliyeed markay marxaladahaas ay wajahaan waxaan rabaa in ay sii dardargeliyaan caawinaadda iyo taageerada ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed inay sii dardargeliyaan inta aan ka sugaynay waa ka badan aan ka rabnaa wixii hadda ka bilowdo in la isku tashado ummadda Soomaaliyeedna ayada ay isku tashato hay'adaha caalamka mar walbana waan ku celceliyaa waxaan rabnaa in dalkan laga samata bixiyo arrimaha emergency ama arrimaha gargaarka ama gurmadka laga baxo dadku dowladdu in lagala shaqeeyo arrimaha horumarka oo ay ka mid tahay in la tayeeyo qodob hay'adaha dowladda maanta wasaaradda gargaarka haddii la tayeeyo oo dad capacity leh loo shaqaalaysiiyo system loo dhiso ayadaa ku filnaan kartaa dowladdu inay samata bixiso ummaddeeda koow waa inay maxaa la dhahay beesha caalamka naga caawisaa waxaan la yiraahdo dhisidda iyo tayeynta hay'adaha dowladda lambar 2 inay nagala shaqeyso in horumarka dadka lagu dhiirigeliyo oo dadku lagu maalgeliyo maxaa la dhahay beerahooda iyo wax soo saarka dalkeena nagu filan dal qani baan haysanaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa mar dhow in laga baxo ummadda Soomaaliyeed ee reer Jubbaland meel walba joogto abaartu saameysay waan maxaa la dhahay waan u mahadcelinayaa sida ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u aamineen dowladoodana u aamineen
wax walba gaarsiin ama ha yaraado ama ha badnaadana ayagana ay man walba raalli ugu ahaayeen macal madaxweynuhu ilaa xukuumaddu ilaa iyo shacab ilaa ganacsato waa loo istaagay intii wax la gaarsiin karana waa la gaarsiiyey dadaaladaas iyo in ka badanna uu madaxweynuhu nagu hogaaminayna waan soo wadnaa xal waara in loo helana waan rabnaa inay isku kalsoonaadaan in waxaan rabnaa maskaxdooda ay ka saaraan mar walba inay macaawinaad u daba fadhiyaan oo kheyraadkooda iyo dalkooda iyo beerahooda iyo kalluumaysigooda ay maxaa la dhahay ay diiradda saaraan annaga ka dowlad ahaanna oo boolisiga hadda madaxweynaha u wado in lagu hogaamin doono siduu ballan qaaday in dadku loo tallaabo horumar lagu maalgeliyo kalluunka beeraha iyo wax soo saarka iyo xoolaha iyo wax soo saarka dalka intaas inay niyadda ku hayaan dowladdoodina ay maanta hadda dhammaystirayso barnaamijkii xalka waara qorshaha meesha ugu dambu maraya wixii ku barakacay Jubbaland loo samayn doono guryo iyo hooy maxaa la dhahay rasmi ah kadibna maxaa la dhahay la maalgeliyo noloshoodana wax looga qabto adeegyada dowladana la dardargeliyo marka insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin waxaanan ugu baaqayaa meel walbo joogan reer Jubbaland inay ka shaqeeyaan nabaddu ciidamadu ay garab istaagaan door weyn ay ka qaateen abaari hadda ciidamadu meel walba ay joogeen dadka ayaga naga caawinay ayaga soo daad gureynay dadkii ka soo cararay meelaha aan amniga ahayn amnigooda ayaga sugaay dhulka ay dowladda dejisay ayaga ka warqabe ciidamada Jubbaland aad uga mahadcelinaya kaalinta ay ka qaateen gurmadka abaaraha waxaanan xaqiijinayaa hataa ciidanka saadkii loogu talagalay ee raashinkoodii u yaalay dadkii barakaca oo masaakiinta ah oo ka soo qaxay jubbooyinka dhexe iyo deegaanada kale fogfog ayay ku caawinayaan raashinkii marka wax la dhiirigeliyo ayagana ciidanka la garab istaago ummadda Jubbaland ha isku tashato si looga baxo barnaamijkan mar walba soo noqnoqonaya insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin aad baa u mahadsantahay wasiir waa kaaga mahadcelinaya waqtiga ay qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka aad u mahadsantahay thank you guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay xaaladda abaaraha Jubbaland barnaamijka waxaa marti igu ahaa oo igala qaybgalayay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed waxaana barnaamijka idin la socodsiinayay anigoo Ismaaciil Bashiir Warsama dhanka kaamirada waa Cumar Siyaad Axmed inteenu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah sida iyo nabadgelyo